السلام عليكم daawadayaal soo dhawaada ku soo dhawaada kanaalka qalbi Soomaali TV oo laba aynu kaga hadalna arrimaha fanka iyo waliba arrimaha bulshada. Hadaba maanta waxaynu soo bandhigaynaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee raba inay fanka ka xuub siibtaan, yacni inay guud ahaan fanka ka baxaan. Hadaynu hadalkeena si kala u dhigno, waa fanaaniinta rabbigooda u xiisay. sidaas ay tahayna daawadayaal waxaan halkan idinku soo bandhigaynaa codod sira oo ay isdhaafsadeen fanaaniintani. laakiin daawadayaal haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato kanaalka qalbi Soomaali TV si aad ula socoto wararka xiisaha badan iyo barnaamijyada aanu soo baahino maalin kasta, fadlan subscribe saar kanaalkan kadibna taaba calaamada gambaleelka ama jalaska. inta kadib waxaad noqon doontaa daawadaha koowaad wax kasta oo aanu soo gelino kanaalkan. sidaa daraadeed ku soo dhawow barnaamijkeena. ugu horeyn daawadayaal fanaaniinta Soomaaliyeed ee rabbigooda u xiisay isla markaana raba inay fanka ka baxaan waxa ugu horeysa fanaanada dhalinyarada ee lagu magacaabo Saacadiya Siman. Saacadiya Siman sida aynu ku naqaano waxa ay ka mid tahay fanaaniinta farakutiriska ah ee asturnaanta ku soo shaabaxay. sidaas oo tahayna waxaynu ku naqaanaa codkeeda tolmoon iyo sida ay masraxa fanka wacdara uga dhigto. haddaba daawadayaal fanaanada Saacadiya Siman marka loo fiirsado nolosheeda waxyaabo badan ayaa inooga muuqanaya, laakiin haddii aad si dhab ah ugu fiirsato fanaanadan iyo nolosheeda dhabta waxa ku soo baxaysa arrin kaliya, taasoo ah in fanaanadani ay aad ugu xiistay ku xidhnaanshaha rabbigeed. run ahaantiina daawadayaal waxa la yaab leh sida aynan iskaga indhatiri karin astaamaha ay muujiso inta badan fanaanadani, kuwaas oo aynu ku garan karno in qoftani markasta niyadda ku haysa inay ka toobad keento fanka, balse goor ay noqotoba waa fanaanad qalbi wanaagsan oo sidaas darteed waxaynu u rajaynaynaa inay ka toobad keeni doonto fanka isla markaana ay ku dhaqaaqdo jacaylka ay u qabto rabbigeed. geesta kalena daawadayaal fanaaniinta Soomaaliyeed ee iyaguna raba inay fanka ka baxaan waxaa ka mid ah fanaanka caanka ee lagu magacaabo Xidiga Geeska Afrika. waa fanaanka loo yaqaan Suldaan Seeraar. fanaankan sidiisaba waxa uu eegyahay ruux shakhsiyad wanaagsan leh, waxaanaad ka garanaysaa arrinta aamusnaantiisa iyo weliba deganaantiisa iyo habsami u socodka fankiisa oo maalinba maalinta ka dambaysa tallaabo weyn ayuu sii qaadayaa. haddaba daawadayaal Suldaan Seeraar haddaad si dhab ah ugu fiirsato noloshiisa iyo waxyaabaha kale ee uu qabanayo marka uusan ku jirin shaqada fanka, waxaa kuu soo baxaysa in fanaankani si dhab ah rabbigiisa ugu xiisay, isla markaana wejigiisa waxa aad ka garanaysaa inuu rabo inuu fanka ka baxo guud ahaan. daawadayaal fanaanka saddexaad ee isaguna raba inuu fanka ka xuub siibto ama ka baxo waa boqorka heesaha cusub, waa alfanaan Liil Baliil oo hore aad u aragteen isagoo shaaciyay inuu fanka ka baxay, balse mar kale dib ugu soo laabtay oo isla haddana ku dhex jira badweynta fanka. laakiin fanaankan heesihiisa mooye sidiisa kale waa qof wanaagsan oo lagu tilmaami karo maasha Allah boy. sidaas oo tahayna sida sawiraantiisa idinka muuqata waa fanaan Ilaahay barya oo ka barya wanaag iyo naxariis, wuxuuna ka mid yahay fanaaniinta imika ka bixi raba fanka sida ku cad sawiraantiisa iyo weliba xogo kale oo aynu hayno. daawadayaal fanaaniinta kale ee Soomaaliyeed ee aad noloshooda ka dheehan karto inay rabaan inay fanka ka baxaan waxaa ka mid ah fanaanada quruxda iyo muuqaalka wanaagsan ee lagu magacaabo Ugbaad Aragsan. sida kaaga muuqatana sawirkan waxay si niyada u baryaysaa Ilaahay, sida ay sheegtayna waxay ku ducaysatay in Ilaahay wixii xun oo dhan ka leexiyo, waa sida ay ku soo qortay baraheeda bulshada. dhinaca kalena daawadayaal fanaanada loo yaqaan Nasteexa Indha ayaa ka mid ah fanaaniinta nolosha fanka jeclaan lahaa in ay marun ka baxaan sababo la xidhiidha qalbigeeda, waxayna fanaanadani soo bandhigtaa iyadoo tasbiixsanaysa ama wardinaysa sida kaaga muuqata sawirkan. waxay kaloo fanaanadani inta badan soo bandhigtaa iyadoo xaramka Ilaahay ama xajka dhex taagan. sidoo kalena daawade fanaaniinta kale ee raba inay fanka ka baxaan waxaa ka mid ah fanaanka qosolka iyo labiskaba isku darsaday, fanaanka caddaanka iyo madowgaba isku darsaday, fanaanka Soomaaliyeed
waa xidiga magaalada Muqdisho waa fanaanka loo yaqaan Dayax Dal Nuurshe. haddaba sida kaaga muuqata fanaanka waxa uu jeclaan lahaa inuu fanka gabi ahaanba ka baxo oo noloshiisa kale iska wato, laakiin daawadayaal xisaabta ku darso, fanaankani waxa uu qabaa naag magafaha fanka ah oo markasta ku dhiirigelisa siduu u noqon lahaa fanaanka koowaad ee gayiga Soomaaliyeed.